waan ognahay deegaanadan in muddaaba waxaa hogaami jiray dad la soo magacaabay aan ayaga lagala tashan rabitaankoodana aan ku imaan laakiin insha Allah hadii la raalli ka noqdo wixii hadda ka dambeeyo dadaad idinku soo xulatiin ay naga doonaan dadaad u aragtiin inay ummadda masiirkeeda ay ma aragtay lagu aamini karo hogaanno idin naga karaan aad soo xula doontiin hadii la raalli ka noqdo waxaan rabaa hal arrin ma aragtay dardaarmo nabadoonnada iyo culamaa u diinka dadka waxa deeq waxa la yiraahdo cadaaladda hadii wax la qaybso tagana waan ogahay isriix badan ay imaanayeen ummadda deegaanka in cadaalad wax loogu qaybiyo taladu hadayna marba magacaabis ahayn dhiisha guntay ka unkumantaahe talada gacantiina ku soo naqo odayaasha dhaqanka aasaaska haduu mar wareerana guriga kor kama dhismaayo waxaan rajaynaynaa in cadaalad dadka deegaanka wax ugu qaybisiin ee qof waliba xaq ay leedahay la siiyo hadii la raali ka noqdo marna wuxuu hadayna cadaalad ku dhisnayn ma adkaa karaan tiir adagna ma naga karaan in ummadaas cadaalad wax loogu qaybiyo qof waliba waxay xaq u leedahay la soo siiyaan rabna hadii la raali ka noqdo qaabka wax loo xulaayo ko waxa ka naga doona insha Allah hadii la raali ka noqdo odayaasha dhaqanka qaabka qabiilaadka iyo dadku ay u degaan ayaga yaqaano sidii wax u kala qaada jiraan ayaga yaqaano